وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد waxaan ku soo dhex jirnay juskii qad samac waa darsigii afraad wuxuu ka bilaabanayaa suuratul mumtaxina aayadda 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله ألا وحو مدنيهي وحقيقكويه أن يجعل إنو يلي بينكم لحدينا مؤمنين تيو إيو بين الذين كوي دحضوا عاديتم ألا علودين ومنهم قال هذا كم إذا مودة كالكعيب إنو يلي والله ألنا قدير متكي أوده ويوحكست والله ألنا غفور متكي دافد بدون رحيم ونحرست. آياتكي كهري آيادا دام قال ذي حريرك أتشر ليلي عداوة ينعي يقوين كسمية لي أيام إيشان آيادا وحال الرجاق لنيا قورت عاد أمرك إلهي بشرعك فلسان ألو حلقيا تبارك وتعالى ويولو ذهي أما حقيقة بقى dadka aad qaraabada ahaydeen ilaahay dartii u goyseen inuu ilaahay dhexdiina kalkacayl dhigo oo seebu ku dhigayaa inay soo islaamaan oo cadaawad iyo gaalnimada ka soo baxaan markay soo islaamaanna muslimiin noqdaanna ay markaasi ilaahay dhexdiina kalkacayl dhigo oo cadaawadii lillaahida ahayd ilaahay dartii aad u nacdeen inuu ilaahay idinku bedelo kalkacayl iyo isjacayl qulubtiina isu dumo طبعا waa soo islaamayaan. طيب sidaasay u dhacdayo rag badan oo markaasi aayaadkani soo degayeen gaala ahaa nabigana dagaal kula jiray dadkan in la gooyo la leeyahayna hal la gooyo la leeyahayna kamid aha ayaa gadaal dambe soo islaamay kadibna waxay noqdeen dad nabiga difaacaya iyo diintaba dadkii shalay ay isnacbaayeenna dib bay isu urursadeenoo walaalo u noqdeenoo isu jeclaadeen. Abu Sufyaan baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa Al-Harith ibn Hisham waxaa ka mid ahaa Hakim ibn Hizam muxuu ahaay rag badan oo raggii gaalada ahaa Quraysh odayaasheeda ah ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah Hind bint Utba islaantii Abu Sufyaan uu qabay oo markay soo islaamtay kadib tiri Nabi Maxamedow dadkan kuugu necbaa maantana dadkan kuugu jeclaa marka qoliyahaas laga wada. عسى الله ألا وحو مدنيهي وحقيقة يجعل إنو ياليو بينكم لحدين وبين الذين يكوي دحدود عاديتم ألا عليتنتين ومنهم قال ذا كم إذا مودة كالكعيل إنو يالي ولحدين الشعيل لقي دون معنا عداودنا وذيك الصار قلوبتنا سدوا بدون والله ألنا قدير ومدك أوده قلوبتي كلا تكتي inuu mar labaad kulmiyo isu keeno isjeclaysiiyo alla uu awooda laana qulubtu ilaahay gacantiisa ku jira isaga sidoo doono u rogroga intuu doono isku dira intuu doonana waa isjeclaysiiya oo isu duma wallahu qadirun midka awooda way ala jam'i shataat wallahu alla ghafurun midka dhaafid badan oo kuwa gaalada ah inay soo noqdaan oo gaalnimadii dambiilo loo dhaafo uu awooda رحيم وكو أدومدي سونا حريص ربي تبارك وتعالى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال لماذا هاي الدين الإسلام لماذا نقول هذا قال لميس
haddii xidhiirka inoo dhaxayn kara la xadiday qaabkan ula mucaamaloon lahayna la sheegay waxaa meeshan lagu sheegayaa gaalo nooc kale ah sidaas si aan ahaynna loola dhaqmayo waana gaalada aan cahdiga iyo ballanta ku wada nool lahay oo markaa uusan dagaalna dhex oolin si aan loogu qaadanin xukunkii hore ayaduhu ka soo warrameen gaal oo dhan in lagu dabaqayo ayaa marka waxaa laga soo reebayaa kuwo ka duwan sidaa oo iyaga si kale loola dhaqmayo laa yanhaakum allahu alla idinkama reebayo can aladiina kuwii xaggooda lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi ddiini diinka dhexdiisa aan idinkula dagaalamin diinta darteed aan idinkula dagaalamin oo walam yukhrijuukum aan idin saarin min diyaarikum deegaamadiinna iyo guryihiinna aan idinka saarin muxuusan idinka reebaynin an tabarruuhum inaad ixsaan u samaysaan wanaag inaad u samaysaan wa tuqsituu cadaalad fashaan ilayhim iyaga cadaalad u fashaan inaad wanaag u samaysaan cadaaladna u samaysaan alla idiin diidi maayo maxaa yeelay ina allaha alla yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeya dadka cadaaladda ku dhaqma yuu alla jecel yahay tabaaraka wa tacaala kuwa marka laydiin diidi maayo kuwee laydiin diidan yahay innamaa yanhaakum wuxuu uun idiin diidayaa oo idinka reebayaa allahu alle can aladiina kuwii xaggooda qaataluukum idinla dagaalamay fi ddiini diinka idinkula dagaalamay oo diintana qaadateen daraaddeed idinkula dagaalamay oo wa akhrajuukum idin saaray min diyaarikum deegaamadiinni iyo guryihiinni idinka saaraya dhulkiinni oo wadaaharuu kaalmeeyey calaa ikhraajikum saariddiinnana ugu kaalmeeyey kuwa idin saarahaya yay garab siiyeen kuwaasaa alla idiin diidan yahay muxuu idiin diidan yahay an tawallowhum inaad ka weli yeelataan inaad xigto ka dhigataan ood jeclaataan waman yatawallahum ruuxii ka weli yeeshaan fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa addaalimuuna daalimiinta kuwa u ah kuwa ka weli dhigtay gaaladaasi idinla dagaalamaya diinta idinkula dagaalamaya halkaa marka waxaan ka garannay gaaladu waa laba noocna waa gaalo dagaala inugula jirto diinta iyo xaqa inugula dagaalamaysa kuwa horaa looga soo warramayo waxa ina dhex mari kariya mucaamaladooda waa taa la soo qeexay gaalada nooca labaadna waa nooca markaa dagaalkaala dhaxaynin oo ama heshiis baad ku wada joogtaan oo ku wada nooshiin cahdi ama waa dimmi oo dowladdii muslimkuuba ku hoosnooyo shacabku ka tirsan yahay oo gaalo badan oo sidaasaa jirto oo gaalada markay yacni awood waayaan waxay noqonaysaa inay bulshada ka mid noqdaan oo kadibna laga qaado wixii jizyada la dhihi jiray marka ama waa dimmi ama waa cahdi mucaahad oo ballan baa ka dhaxaysa muslimiinta wada noolaansho iyo dagaal la'aan ah wax dagaala kuguma hayo marka kuwa kula dagaalamahayana markaasi garab ma siinayo dhibkaagana kama shaqaynayo kuma saarayo ka noocaasoo kale ah marka isaga dhaqankiisu waxa weeye wixii wanaaga u samee cadaaladna u sameeya oo ha ku xadgudbina yacni waxa weeyaan laanna cadaaladdu sideedaba gaal iyo muslim waxaa la rabaa cadaalad in loo sameeyo xataa kuwii la dagaalamayey allah tabaaraka wa tacaala wuxuu uhi walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa icdiluu yacni gaalada nacaybka aad u haysaan iyaysan idinku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan waad necab tihiin laakiin haddana cadaaladda ilaaliya kuwaasi marka qaabkaasaa loola dhaqmayaa kuwa marka mucaahadka ah waxaa kaloo jira nooc saddexaad oo musta'man la dhaho musta'manku waxa weeye dowladdiisii buu leeyahay mujtamac kaluu ka tirsan yahay laakiin dalka muslimiintu wuxuu u baahday wakhti inuu joogo ammaan baa la siiyey marka yacni waxa weeye fiisuu ku soo galay ammaan baa la siiyey muddadaa uu joogo marka isagana dhiiggiisa iyo xoolihiisuba waa xaaraan waa macsuum kaa ballanta aad ku wada nooshihiin oo wada dhaqan tihiin oo aan dagaal idinka dhaxayninna isagana dhiiggiisa iyo maalkiisuba waa macsuum kan dimmiga ahoo dowladda shacabka bulshada ka tirsanna sidoo kale waa iyaga kuwa iyaga dhaqankana lagula dhaqmayaa way macna aayaddaasi waxay ku soo degaysaa baa la leeyahay sida imaam axmed uu soo saaray asmaa binta abibakr oo abubakar gabadhiisii ah
ayaa hooyadeed baa u timid xilligii heshiiskii Xudaybiya lagu jiray hooyadeed oo socotaa timid magaalada Madiina ay timid Makayna ka timid hooyadeed marka waa gaal gabadheeday u timid hoogaa waxay wadaa Suuriya gabadheedana waxay ka rabtaa intay muddo la yara joogto inay ka laabato markay gabadheedii Asmaa u timid ayay diiday inay soo dhaweyso hadiyadii waxay wadana ka qaadato gaal baa tahay yay ku tiri marka nabiga u timid sallallahu alayhi wasallam waxa tiri rasuulka ilaahay hooyaday baa timid hungurina waa hayaa wada gabadheedii meesha ugu timid oo soo booqatay ma xiriiriyaa mise gaaladii gooya la yiri bay kamid tahay waa jara nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam shili ummaki hooyada xiriiri buu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka aayadana soo degtay la leeyahay dadkaasi ma aha kuwa idin la dagaalamay dagaal idin kulama jiraan soo dhaweeya oo xiriiriyo macna لا ينهاكم الله ألا إذن كما ريبيا عن الذين كوي حقوا لم يقاتلوكم أن إذن لدقالمين في الدين كدحدي سأل إذن كلا دقالمين عاكدوا في الدين بالليلين هذه مصالح أدوية أنت إذن دحبرت وحوقا أمام قولي سوق قبطان أما سكلا سوق قبطان ويكدوا أنت وحل الله يوحوي ومرك الدين يا عقيدة يا مبدأ يقول دقالمين طيب ولم يخرجوكم أن إذن سارن من دياركم قريهنا أن إذن كسارن ألا إذن دير ما يأن تبروهم إن أدوس مفشان وضوناك أسميسا إحساني وناك أسميسا حريرين توضا واحتر كودا الدنيا دودا وحقبشة دودا وهكذا وتقسطوا إلى العدالة سميسان إليهم حقودا إلى العدالة قارسيسان ليدين ديدي ماي إن الله ألا يحب وحجاله المقسطين كوا عدالة السمية عيد والباء يعني وحوي عدالة عيد محوها هاي كهوس بحسن ما جرت إنما ينهاكم وحوء إذن كريبيا الله ألا عن الذين كوي حقوا قاتلوكم إذن لا دقالمي في الدين كدحدث إذن كلا دقالمي كوا أمبو ألا إذن كريبيا وهو أخرجوكم إذن ساري من دياركم ديقا مدينين إذن كساري وكشقي سيدا أقحي لها إذن أقولكين إذن كقحي ووظاهروا كالميي كوي إذن ساري بأوكالمية على إخراجكم بحنتنا كركيدا أوكالمية إلا إذن بحيو إلا إذن قحيانا ويكلا شقيان وقعم بيكيستين كوا سؤال إذن ديدين محنو ديدين أن تولوهم وبدل إن أتكول يارتان أيو ألا إذن ديدين التولي وحوي إن أتحكتك لغتوت شعلاته وإسوه اللسان وقرب كدغتوا كوا مايا ومن يتولهم روحي كول دغتو كوا حكتك دغتا فاولئك كواس هم يغا الظالمون ظالمين ظالم ويكاس معنا قال الهي دينتي صلى دغالمay dadka muslimiinta ninki xigta ka dhigtay oo yani wadaay ka dhigtay waa ظالم waay aayadi fi surati al-ma'idah Allah wa ka kuyiri ومن يتولهم منكم فانه منهم روحي كولي يشاء أيغو كترسن يا الله تبارك وتعالى sidaas weeyaan marka yani tawalliga gaalada laga wali dhigtay wuxuu noqonaa maraaxil mar wuxuu noqdaa gaalnimo gaarsiisay marna macsi dambi buu noqdaa xaalada kala duwan buu xukunkeeda qaadanaya يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن وحاد لوغا hadlayo loo soo celcelinayo gaalada ha ka wali dhiganina laana gaalada laga wali dhigtay waa fasaad waa ka ilaahi fi surati rabbi tabaaraka wa ta'ala suratul anfal aakhir kada markuu dadka qaybiyay sida yani muwalaadkii tawalliga markuu kala qaaday Allah tabaaraka wa ta'ala waa ka inoo sheegay gaaladu inay iyagu awliyo isu yihiin hadday awliyo isu yihiin waa inaad ugu tala gashaan oo gaaladii aad idinka iska xigsataan ayagina isxijisaan haddaad yeeli weydaan illa tafcaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir marka fasaad weyn baa dhacay oo fasaadka dhacay muxuu yahay waxa isku darmanaya gaalkii iyo muslimkii xuquuqdii ay kala lahaayeen baa isku qasmay waxay noqonaysaa muslimiintii in taladoodii iyo nusradoodii iyo jacaylkoodii iyo barnaamijkoodii ba gaaladii la dhaxgeliyo kadibna meeshaas waxa ka iimaanaysa in ilaahay tabaaraka wa ta'ala marka xuquuqa keeno
marka waa in axkaamta rabbi siday tahay loo fuliyo halka waxaa laga guda galay oo aayaadkan soo socda labadan aayadood isdaba yaala ay ka hadlayaan waa kan soo sheegnay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam sanadkii lixaad ayuu umra aaday umradii bay u diideen quraysh soo gali maysid bay ku dhaheen kadibna xabaar haddii la isdul joogay dagaal la dhici gaadhay waa kii heshiiska la wada galay heshiiskaasi waa inagii soo sheegnay qodobo dhowr u lahaa qodobadiisii waxaa ka mid ahaa muddada 10 saneen heshiiska ku jirno ee nabadda aynu nahay ee dadku isdhex marayaan maxamedow haddii cid annaga naga mid oo reer Maka intay Maka ka yimaadaan Madiina kuugu yimaadaan oo diintaada soo galaan noo soo xili haddiise adiga ay cidi kaa soo tagto oo ay kaa soo noqoto oo ay annaga noo yimaadaan oo meeshanada soo galaan soo xilin mayno qodobadii heshiiskay ka mid ahay qodob adag buu ahaa waa qodobkii saxaabadu ka biyo diideen buu ka mid ahaa marka qodobkii isaga ahaa sidaa markuu u dhacay oo heshiiskii la kala baxay oo la kala qortay oo nabigu soo gadoomay ayaa dadkii Maka ka yimid ee soo islaamay ee ka soo tagay gaalada waxaa ka mid noqday dumar hada dumar haddii la celiyo gaalada lagu celiyo rag la galayo rag haddii la celiyo uu dadka iska dhex joogaya haweenay soo islaamto dalkeedii ka soo tagtay haddii la gaalada ka tagtay lagu celiyo mafsadadu waa ka badan tahay dumarkii marka marxaladaasi soo baxay ma xukunkii heshiiska qabanaya oo la celiniyo ila rag buu nabigu celiyo oo heshiiska ku celiyo rag waa la celiyo dumarkii baa marka waxa la leeyahay ayaga ha celinina ayaga heshiiskii nooca ah iyo qodobkii nooca ah ayaga qaban maayo hadday soo baxaan oo idin yimaadaan dumarku ay soo islaamaan ayaga kuwa la celinayo kuma jiraan oo ragay khaas ku tahay mas'aladaasi taasay ka hadlaysaa iyo dumarka marxaladaas soo islaamay Maka ka yimid ee diinta soo galay magaalada Madiina nabiga ugu yimid sidee loogu talinaya waa ku ka yaa ayyuhalladina kuwa aamanu rumayayo idaa goorti jaa'akum aydin yimaadaan almu'minaatu dumarka mu'minaadkii muhaajiraatin ayagoo soo hijrooday oo deegaamadoodii ilaahay dartii uga soo tagay famtahinuhunna imtihana dumarkaas imtihana oo maxaa la imtixaan ku yahay waxa lagu imtixaanaya waxay u soo tagtay inay ilaahay dartii iyo diin la cararkeed tahay ujeedda adduunyo inaysan u soo cararin taa iyada ku dhaariya inaysan nin ka soo cararin inaysan guurdoon kale ahayn inayna dan kale u soconin inay kaliyeeto ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaatay iyo islaamnimo u soo kacday inta ku imtixaana famtahinuhunna imtihana Allahu alle ayaa a'lamu ogaansho badan bi iimaanihinna iimaankooda yani iimaankooda dhab ahaantiisa alla og laakiin idinku imtixaanka wixii idin ka soo baxa wax ku qaybsada laakiin dhab ahaan iyo xaqiiqa ahaan waxay muujisanayaan iyo waxa qalbigooda ku jira inuu isleeyahay taa ilaahay ba ogaan karo Soomaa idinku laakiin wax weeye waxaad ogaan kartaan wixii malihiina u bato Allahu a'lamu bi iimaanihinna fa in alimtumuhunna hadad ogaataan mu'minaatin inay mu'minaad yihiin markaad imtixaanteen imtixaankii waxa idin ka soo baxo malihiina u batay inay mu'minaad yihiin yani dhaartii iyo qirashadii wixii ka muuqday yaad ku ogaateen fala tarji'uhunna ha'alinina marka dumarka ila al-kuffari gaaladii haw xalinina gaalada ka soo xarreen haw xalinina kufaarta waxa laga wadaa bimaana ragii qabay ee xaasaska u ahaayeen dib ha ugu xalinina way soo islaamtay ninkeedina wali waa gaal haw xalinina maxaa loogu xalinayna la hunna iyagu maysan ahaanin dumarkaasi xillun kuwa xalaal ah lahum ragga xalaal u amayna ahaanin muslimad gaal ma qabi karo sooma sidaas daraadeed maadaama aynan dumarkani raggay ka yimaadeen xalaal u ahayn ha ku celinina
ولا هم إيجو ورقي قبي ولا هم رقنا يحلون كوا حلالو بيان ميسن أهاني لهن دمر كاس دمر كرقننا دمر كاس هو إسلامي مرنا حلال ونقن بيان مستقبلك دمر كاننا الرقاس حلال اسمه ومر هدو حرقي إسلام تو الدين تسوق شيء نين قال أحاس ومن نقول كرتو مهوس جوي كرتو سيداس دراتي ده كو علينا حلال اسمه نقول يعني طيب أرنكاس مركب وحو جوي دمر كي لحليني علماء قاروح إليهن أيضا وحي مثال نقول كرتا قاعدة اللي هذا أصولية أو اللي هذا تخصيص السنة بالقرآن حكم كهشيس كحديث كنبي كوسقنا هذا عام بوك رجع دمر قرآن كأمر كيميدو دمر كيبو كسو صاري أو كخصصي طيب وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم هدي اللي يدي دمر كي رجعوا دي كسو تجي هو علننا هو سو إسلام تقال كدي هو علننا رجع حولا كمقن نينكو قال هذا الشيء بات كله جرتان حريص وحرام نفتيسنا وحرام إسلام تنكسر تكتينا سو إسلام تيدان أحلينا حاس كيسيبه هاي ومهر بوسي وحولا كجم مقنا سيل اللي على حوليس مرك وقال ويه يعني وحوي بمورابيه قال بقطع برا الهلاي وحاجة قادم يلا راح هذا وحب مليد ما لنا ما يوحي سوي له حلي وآتوهم سيا رجع دمر كودي إذا نحليني وآتوهم سيا ما أنفقوا وحي بحيان وحي كبحي أو مهرة أو إسلام تنوسي دبوسي هاي سوق درينا إسلام تيوت كهاي ستان يحول الآن هاي سوق درينا إسلام تيهدد كهاي ستان لعشري وحي كبحي أو مهرة وحي يوسي طيب ولا جناح عليكم أن تنكحوهن حكم ويهرت حليننا وحكم خرج كودينا وحلية وحكم لبعض حكم كصدح دوحي الدبر كقصابسا ولا جناح واحد بيا عليكم كركينا ما هان أن تنكحوهن دمر كائنات جورستان إذا قرتي آتيتموهن آتسيسان أم آتسينيسان أجورهن مهريالكم وين يدي قال كسو تكتي سو إسلامتي وحال السوقية إن عدة ترسطو على الصحيح إنه وحوي هل عادة ترسانيسا هل عادة مركيهش وعددي ويكبحنا وحي إنتا كدن بيا هو تقورسان كرتان إنا تقورستان دن بيدين كسو قاري ماي واسي قورما وقور مهر كودا آتسينيسا طبعا وحا ميشا كوشرا إهل كيدو هدو مسلم يا إسلام يا إهل كيدا لغا قورساني مركا لكن إهل كيدو هدي قاليهين لغا قورسان ماي مركا وحا قورينيا يعني waxa way qaadiga muslimiinta ama xidda muslimiinta mas'uulka waa meesha jooga sultaankooda guurinay marka goorma la guursan karaa waa meesha hadal badan baa culimada ku jiro waxay leeyihiin hadii ay ninka ka soo tagto soo islaamto ciidada markay ka baxdo khiyaar bay leedahay khiyaarka ay leedahay waxa way inay markaa guursatana way heli kartaa oo ninkii dii xarigiisa waa go'ay gaalka ah in ay iska sugto intay ciidadii ka baxday islaamnimadiisa ay sugtana way heli kartaa oo ay ka war dhowrto bal inuu soo islaamo marka kadib ay dib soo helaan طيب ولا جناح واحد بي عليكم كركنا ما أن تنكحوهن إن كوستان إذا آتيتموهن هدات سيسان وإذا قرت آتيتموهن دمر كآسيسان أجورهن مهريالكم ولا تمسكوا آيات سلاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآيات شرطي جور كأرحين كرا جوار مسلمة إيا قال اسمه جور سنكرا جوار مسلمة قال مهر ومقبته في سورة البقرة الله وككويري ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قال هذا هو جورنين الضمر كمسلمات كأ إلى إيمان لي ما دانوا إسلاما رجع مسلم كأ أيها قال هذا أهل الكتاب كأ أو ضمر كودا جورسن كرا أما جوار المسلمات ده نين قال حرك ومقبته
hadday wax guur ay ku wada joogaanna guur ma ahee zina iyo qashin bay ku wada joogaan waa ilaa gabadh muslimada nin gaala ma hoos joogi karto xaas ma noqon karto totally mas'aladaasi marka meel cad baa la saaray wala tumsikuha haysanina meeshaasi waxa yaala marka iyadana haddii dumarkii la yidhi soo hijrado soo islaamay xukunkoodu sidaa noqday rag waxaa jira muslimiin ah oo nabiga la jooga sallallahu alayhi wasallam oo dumar gaala ah oo mushrikaad ah qaba oo Makka jooga ila rag baa dumarkoodii xagga kaga yimi Soomaa oo inay islaamaan diiday oo gaalnimadii ku laaban raggii naagaha gaalada qabay baa iyagana leeyahay sii daaya wala tumsikuha haysanina bi'isamil kawafiri dumarka gaalada xarigooda haysanina xarigyaalkooda haysanina isamku waa jamcu isma waa xariga islaantu ku ilaashan tahay waa guurkii nikaaxi dumarkaasi gaalada ee qabteen ee horay u qabteen xarigooda ha sii haysanina sii daaya طيب ولا تمسكوا بعصم الكوافر markay soo degtay rag badan baa marka dumarkoodii furay oo Umar kamid aha laba dumar xagga joogay oo ku qabay oo Makka u joogay labadiiba uu furo laba nin oo kala guursaday rag badan oo saxaaba marka rag dumarkoodii sii daayo sida ku furay macna wala tumsikuha haysanina bi'isam الكوافر dumarka gaalada xarigyaalkooda ha haysanina waa gaaladan laga hadlayaa marka fahano waa gaaladii Quraysh ee mushrikiinta ahaa waay kuwa xarigooda haysanina waa kuma saabsana marka dumarka ahlul kitaabka ama yahuuda ama krishtanka bi shuruutiha inay dhowrsoon tahay inaan ilmaha loo baqaynin ayaga waxa weeye xukunkooda waxa ka hadlay suuratul maa'ida wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن هل كاسا يلقى حل oo aayadaas soo reebtay dumarka ahlul kitaabka bishruutiha markii shuruuteeda la helo way macna was'alu waydiista ma anfaqtum halkan iyo aayada ka dambaysa laga bilaabo halkan ilaa aayada dambe waxa laga hadlayaa soo lama dhihin muuminiinta nabiga la joogay reer Madiina dumar baa ka carari oo intay ridoobaan u galaya Makka iyo Quraysh aaday Qurayshna dumar baa ka iimaanayo ha celinina leeyna yiri tan tagtay ee Madiina ka tagtayna rag baa qabay oo xoolo kaga maqnaayeen midaasi Makka ka timid ee soo islaamtayna ninkii qabay baa xoolo kaga maqnaayeen oo meher kaga maqnaa si la isugu xililaya barka ila dumarkii kuwan isna soo xilinayaan oo heshiiska kuma jirin nabigana waxa la yiraahdaa celinin dumarka muslimaadka soo islaamay xoolihii marka xuquuqdii xoolaha ay la isugu xililay taas laga hadlay was'alu waydiista gaalada waxaad weydiisataan ma anfaq was'alu waydiista ma anfaqtum wixii aad bixiseen islaantan muslimada ahay ee idinka carartay ee gaalada u gashay taa iyada ah wixii aad ku bixiseen oo meher ahaa gaalada ay u gashay weydiisto oo nasiiya was'alu gaalada weydiista ma anfaqtum islaantan carartay fakatay wixii ay idinkaga baxay meher ahaa gaaladay u gashay weydiisto nasiiya waliyas'alu iyaguna ha weydiisteen ma anfaqu waxay bixiyeen oo muslimada soo islaamtay iyaga ka soo tagtay wixii kaga maqnaayo meher ahaa siiyeenna idinka haydin weydiisteen oo siiya ذلك كاسي حكم الله ذلكم كيناسي حكم الله إلهي حكم كيسوا عدالة دواء إلهي تبارك وتعالى يقول قالا يهدنا قرصور أصميني يعني وحويان حوله هذا اللي اسكقات ولا ليه ماي ساس دردد بمغيرة مركز إسلامي وحسمي لمن أيوة السعودين أيوة انتو ميود دلي حولي مسوقات حولي مركز صور عيب الله سو إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم islaamnimadii iimaanka waa ka yeelaya laakiin xoolahan aad soo dhacday adiga ku talaabo ku yiri marka gaalada xoolahoodu uu xaraamta yahay dhiigood iyo xoolahooda lama taaban karayo sida xoolaha muslimka oo kala loo ilaalinayo marka wixii iyaga ka maqan waa weydiistan hasiya idinkana wixii idinkaga maqan weydiisto haydeesiyaan dalikum hukmullah kaasi waa xukumkii Allah طيب
ذلكم كيناس حكم الله إلهي حكم كيسيوي يحكموا حكومة يا بينكم لحدينك الله إذن كلا صار وصا إذن كلا حكومي والله ألا عليم المدكي أكسون بدن واي وقال بدن واي مصالح دينية دنيه إنه أوغان شبدي حكيم مدكي حكمتكم سيفيسويو شيء والبميشي سمناسب كابو دقا الله ما سيبو ما نخلطمو أحكام تاني مركا وحالة دقايا حكمت بيكو سليسي علم ربنا ويكو سليسي سيدا صدادات سيدا إن لو قاتوي معنا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وحاتب الملك حولي اللي سحر يليل هذا يدنكي قال هذا كسعوي وإنك ذا شرعي بقى إن قبنا يوم إسلامتي إسلامتي حولي لقى حرين لها دينتا إن أمرتين لقى حرين النبي وإنه حرين صلى الله عليه وسلم صوما شرعي كان سود دقي أحكامتنا قبنيس أيجي هدي ديدان إسلاميه أقلي إنه يحكسوا حريان أو وحي لقولها أي سوء حريان محل صمينا اللي نأود لقملها صوما أودنا لقملها شريعة سود دقي سنة أيجو ما برمي سنبا هدي مركي يدانا وحبيدين مسوا حلينين سير لوغو طلينا وي معاه رجي دمركو كم قنايين حقي وح لوغو حلينين تاسا هذنا لا سي فاهفاهينay وإن فاتكم حدو إذن كتغو وإذن كعرروا إذن كفكدوا شيء من أزواجكم حاسسكين كميدا حدو إذن كفكدوا إذن كتغو إلى الكفار قالوا حقودا او فكدوا او تغو او فعاقبتم marka aad qaniime heshaan aad qaniimaysataan oo gaalada xoolo ka furataan faatu siya alladina raga ذهبت أي تكتي أزواجهم حاسسكودي أي تجين واحد سيسان مثل ما أنفقوا وحي بحيان وحلم إذا سيا وحي هوين تاك كم قراية بحيان وحلم إذا هلك كسيا واتقوا الله لنا كبقى الذي الله أنتم إذكم به إسق مؤمنون كور ما سناتين معناه الوحوي هذي قالت ديدان إلى وحي سوحليان ninkii muslimka ahaa ee haweenaydiisu fakatay gaalada u gashay meher iyo xoolana kaga maqnaa idinka muslimiinta u celiya wixii ka maqnaa xagee looga celinaya waxa looga celinayaa qaniimada aad markaa dagaalantaan oo gaalada la dagaalantaan idinka soo gasha qaniimada intaan la qaybinin ragga noocaasa ka siiya meherkii ka maqnaa wixii soo hadha qaniimada hal la qaybsado markaa taasi waa hadaan ku fasirno يعني كلمة فعاقبتم هذان كفسرنا غنيميسي وأنا سيدا أي قبان مفسرين أنت بدن أو ابن جرير غير كود أي رجحيا وحكى له معنى كلا أو فعاقبتم لقوا فسري كرا إلا يراد فعاقبتم من العقبة وهي النوبة يعني أتكلتنتانو كلكي إذنك أضوح بحين لهيدين لقارو ومن بحلقك يعني معاقبة وحل المناوبة يعني الشيء لو كلتمها يوم مرنا أديك حقاقا مرنا كان حقيسا وتصداف صنيسان مرة هذا لقرب مرة سقى لقربه مركز صحولي اللي بحينه مرنا إذنكم أيضا بحينين مرنا أيجي يسوع لقى مربي هذين نقطة مركز إذنكم بحين لهيدين فعاقبتم أو مركز إذنكم بحين لهيدين لتشوفوا قال دي هاي سنين كان حاسكيسو كما كانت هاي سي وحي قال كاسين لهيدين هذا سياحة دين وحلا جوضة إسلامه يجو أقرأي كوانا إذن كيدين سوق عليه وحي هلا اللي يمرك الليل إذن كي ديار بالتين لكن أيجي ويدين إذن ك شيء أتقال كوحدين لهيدين إسلامها كصوفة كذا هذا وحدين لهيدين السجي هالسنين هدي لقاري مركي يا كالنتي يا كال عاد واحد بحين لهيدين حين قاعد إذن كوحسين لهيدين مركي لقاري فعاقبتم تاسع لقوده فعاقبتم نوبديني يا مركي واحد بحين لهيدين إذن كمركي لقارو إيه هالسنين نين كان مسلم كحاسكيسي تكتي وحين يجعليان أيديين كاسية marka wal shayga la siinaya kala duwan tafsiirka hore qaniimada laga siinaya tafsiirka damar waxa laga siinaya wixii dumarkooda ay ka mudnaayeen in laga siiyo baan la siinaynin
كان مسلم كإسلامتي ستكتب أمرك الله سينيا فعاقبتم لبض معنبه ولو فسرا معناها دمان علماء مفسرين تقام إذا مريا شيخ الإسلام ابن تيمية هي ابن القيم هي أيمن وعاصم مريا تفسير كان طب فعاقبتم مرك اللي هذا لقالوا يعني وحوي وقتي إذنكم أضح بحل هذا ومن العقبة المنوبة لقى كان معنا طيب وإن فاتكم هدي إذن كتغان وإذن كفكدان شيء من أزواجكم حاسسكي نكمد إلى الكفار قال هذا حقه ضعيف فكدان أو فعاقبتم مركا آد غنيمة ستان فآتوا سيا الذين كوا ذهبت أي تكت أزواجهم حاسسكودوا تغان مثل ما أنفقوا وحي بحيان وكالسيا كالسيا غنيمة طيب أما فعاقبتم كالكاد وحبحين لهيدين لقاروا قال هذا السين لهيدين فآتوا سيا وحي آد قال هذا السين لهيدين الذين كوي ذهبت أي تكت أزواجهم مثل ما أنفقوا هلكا كسيا أما هلكا كسيا أما هلكا لما تفسيروا واتقوا الله كبقى الذي الله سو أنتم إذنكم به سقى مؤمنون كور من سنأتهم الله كبقى أحكام فولية سيدا إلهي أشياء أفولية طيب آد وحلوغة تحدرية مسلمين تحلقها إساقا مرحلة إيضا حليس بدن باهيستا حليس لقالها هيستا ظروف أدك بيكونوا ليهين حدنا مع ذلك وحل الديدية حول حرام يونو سوقلان قال هذا حتى وحوي حوله هذا لقى إلاليني والديدية هاي وحير إنو كسوليه لأن قورت الجهاد يسو دقالما يسو إلهي درتي دقالما يسو هذا حاراني كوكشو وحيالها شبكة كيني كمتي وقال هذا لقو صلي دي مركا قورت حولها بني آدم كبنا يسطو وقيل أرادت معنا مرك إسك إلالية وحي حقوقه ومعنا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم آية وحل إلى آية بيعة النساء بالإله يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجي الضمر با dadka muuminiinta ballan buu la galay ballan bay ka qaadeen ballantii dumarka nabigu uu la galay mu'minaadka abaatan amar ya ayuha nabiyyu idha qorti jaa'aka ay ku yimaadaan al mu'minaatu dumarka mu'minaadka yubayi'naka ayagoo ballan kula galaya ala alla yushiyagoo ballan kula galaya ala alla yushrikna inayna la wadaajinin billahi alla shay'an wahba خلقيسا wax kamida inaysan wax la wadaajinin ayagoo ballanku gula galay wala yasriqna in aynan waxadin wala alla yasriqna inaysan waxba xadin haday ballanku gula galayaan wala yaznina inaysan zinaysanin haday ballanku gula galayaan wala yaqtulna inaysan dilin awlaadahunna carruurtooda wala yaatina inaysan la imaanin bibuhtaanin masabit يعني بين مدح وريرس يعني بين لا دوخو ايا بونتان تليدان ولا ياتينا الى صلى ايمان ببهتان مصبت يفترينه اي بين ابورنيان بين ايديهن gacmahooda hortooda wa arjulihinna iyo lugahooda hortooda ay been abuuranayaan wala ya'sinaka iyo inaysan ku caasinin fi ma'rufin shay wanaagiisa la yaqaan inaysan kugu caasinin inta hadii yimaadaan ayagoo ballanku gula galay fabaayihunna ballanta la gal dumarka mu'minaadka wastaghfir dhanbi dhaaf weydii lahunna ayaga allah allana dhanbi dhaaf u weydii inna allah alla ghafuurun wa midka dhaafida badan rahiimun oo naxariisto way qodobadan waa qodobadii nabiga sallallahu alayhi wasallam saan sheegnay dumarka uu kula galay dumarkii baa la soo shiriyay nabigu isu keenay sallallahu alayhi wasallam kadibna inay arrimahan heshiis ku galaan oo beexa iyo ballan nabiga kula galaan ayaa laga codsaday ballantiina way galeen waxa loogu hormariyay ala alla yushrikna billahi shay'an inayna ilaahi الله إنيسان عدنا وحلا وداجنين وقضب كدين أساس كوا وتوحيد كي الشرك الآن توا صنم يدي عابدين شيئا بالي شيئا وحيدوني هالنقط وحي إلهي وحلا وداج إلى المجري وينعيد عن الله ينبرين كالمو يديسنين تلصارنين وحي إلهي لها خاص كوا إنيسان الضوء ده وحكسين عدوا دوني هالنقط
تامرك وحوي أصنامتي واحد عابد جرتين رقم كإذينها قوية قضب كلا بعد ولا يسرقنا إنا نحد حولها دتك إنا يسقر سودي أي نكو قاضن طيب وحولها دتك كلام لكن نينك وضع يقولي جودا نينكو هذو إسلامتا بيل كفيل السين ويسوي هلي كرا حوله سيني سقر سودي وقا قاضته وحيدي المه هذا كفيلا بقى بنان هند أبو سفيان حاسكس أي النبي وحي قلت يا رسول الله لكن أضيق أبو سفيان أي قبائل وأنك عن أضيق أني عيال كاي وحنا كفيلا نمسيو هدان وحوغا كقاتو نوقف كورن حوليس السجن يوين وحوغا هدان وسطك عقاتو النبي وحكون صلى الله عليه وسلم أدية المهاجة وحيد دقيقة كقاضو نقبر هدو بخيله مركز ريركي وحسين واحد وحينا وهلي كرو إسلام تي عروتنا وبيلك كحديريو وين تشيبسي تمركا تاسي مركا حتى يبا تاسي حتى يبا وحقي لوغو لهايو laga soo saari waay marka hadii xoog looga qaado waay waa in si xatooyaan looga qaato way macna wala yasriqna inaysan xadin oo xoolaha dadka ayna qarsoodi ku qaadan wala yaznina inaysan zinaysan wayna gogol dhaaf iyo xumaan sameeynin halka markuu nabigu maray sallallahu alayhi wasallam wala yaznina hinda bint utba gabadhii la dhijir Abu Sufyaan qabay ayaa waxay tiri oo rasuul ilaahi aw tazni al-hurra baytiri ورسول إلهي وناق حرة مياه السوق إلى زينيته يعني جاهلية دي حلقة قال هذا هاي زينة الدمر كالدوم هذا يوحنا قيمة لها ينبغي زينة زنجري لكن رقم كودي حتى الجاهلي جاها ناق حرة إلى زينيته هاي أكتر وحيك وحاد وقف مركي ليد مركي هندوي قال إلى هذا زينيسن ويبي يابطيب وحيت له هم ناق حرة زينة السوق الرسول إلهي سيدا سوي معنا واحد قيمة لا معه طيب ولا يقتلن إنيسن دلين أولادهن إنيسن عرورتooda dilin waxa laga wadaa jahiliyadu ilmaha markuu dhashana way dili jireen qaar ahaan gabdhaha oo ama ceeb bay ka baqi jireen ama faqri bay uga baqi jireen oo dili jireen inta quraanku meel badan kaga hadlay ama ilmihii intuu san dhalanin oo uurka ku jiro hadilina oo ilmaha uurka mar haduu galo guntamo in la dilo lama ogola marka waxa way mid uur ku jirana hadilina mid banaanka joogana hadilina wala yaqtulna awladahun arutaha laynina wala yaatina bi buhtani yaftarina bayna aydihinna wa arjulihinna waxa laga hadlaya ilma awnan dhalin ninkeedu inay reerka ku soo darto waa been abuurad iyo masabid maxaa gacmaha iyo lugaha hortooda been abuuranayaan loo yiri waxay leeyihiin waa waxay jeebkeeda kala timido ilmaha de markii la dhalayo xubinka tarankana waa ka soo baxa calooshuna way qaadaa marka wax way waa horteeda iyo lugaha dhexdood waxa laga wadaa ilmo ay jeebkeeda kala timid yeesan reerka soo gelin ama ilmaha noqoto ay zina iyo xumaan ku qaaday ama han noqoto ilmo intay banaanka ka soo qaadatay ay tiraahdo ninka adaa dhalay oo arintaas la diiday laana waxa la diiday nasabka ninka ilmo uu san dhalin lagu soo daraa la diiday وجريمة وادم بوي نينكونا إلما ودلي إنه إنكره وادم بوي هوين يدونا نينكو إلما وصل دلينا يرهر كسود جلسة أقرص يدنا وادم بوي مركز رهر كان يوان نظيفه رهر كان يأبتر كيسة يقويس كيسة سود جليننا إلما عن كتر سنة صدر النصب كلاهين تاسع ليه ولا يأتينا يصلى إيماني ببهتان مصبت بهتان توحلي هذا بين تمد الدرن إلى لض وخالنا بينكو وريرسة سو بجرت ومضع كل حنون وبينها قدر تاسع بهتان تلنا مركب مصبت يهلا يبانني يبين تاسع يفترين وأي بين أبورنا يان بين أيديهن كعمه هذا هرتودا وأرجلهن يلقوه هذا هرتودا أي بين أبورنا يانو أي مصبتنا يان ولا يعصينك في معروف وكجدوين تامر أنت لصوش شيء وحي سوق ليسا ولا يعصينك في معروف وناك أتشديسين إننا كوحاسين إننا دمرين إن بدنا كم من المفسرين وحي كفسران ولا يعصينك في معروف أنت وحي كفسران وقضب بدي بلنت كتشري إن أيسان برورانين مركي لقد انتو جاهلية دي وحي جري جرتي مركي الريارك لقد انتو جيري كش دمركو انت إسو يردان
ayaa la isla barooran jiray markaasay baroortii oohintay ka dhergayaan markay ka dhergaan oohinta ka noolaadaan iyo baroorta ayay markaa kala tagayaan wayna isugu kaalmayn jireen marka waxa kale oo sameyn jireen maryahay jeexjeexi jireen yani jirkay muxuu ahaa xagan jireen timahay googoon jireen musiibada ku dhacday daraadeed marka nabigu qodobadu la galay waxa kamid ahaa inaydaan meyd idinka dhintay iyo musiibo u barooranin qaada ballanta ayada way qaadeen ولا يعصينك في معروف سداس ku fasiraan culimada qaarkood oo qodobka ay wixii la mid kamid ah dumarkii ayaa marka la soo gaaray qodobka ah inaydaan barooranin ballanta gala ba waxa rasuulka Ilaahay waxa jiray hadda ka hor islaan abaal igu lahayd oo ila barooratay abaalkeedii aan soo guday ii kaadi beecada gali maayeen way tagtay way la soo barooratay abaalkii way u soo guday way soo noqotay beecadii bay gashay markaasay ballantii wax ka gashay yaari dad waxay ahaayeen ahdiga iyo ballanta iyo gacan loo geystay aad ugu fiican bay ahayd gaalaba ha ahaadeen laakiin waxay lahaayeen akhlaaq iyo dhaqamo ay ka soo gaadheen nabi ibraahim iyo diintii ay bedeleen yaa wax kaga laabnaayeen saas daraadeed baa nabigeena markii la soo diray sallallahu alayhi wasallam maxaa loo soo diray inma bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq way dhameystiraay qaar bay sii haysteen macna dhaqamo wanaagsan bay lahaayeen martigeliyada inaan martida laga seexanin yaani waxa way amaanada waxyaalo noocaas oo kale lahaan jiray haday marka aynan inta sameeyaan oo intaasi ballanku gula galayaan fabaayi'uhunna ballanta la gal wastaghfir lahunna allah alana dambi dhaaf u weydii oo ilaahay u bari dumarka mu'minaadka wanaagsan ilaahu u dambi dhaaf dheh inna allah al-ghafuur midafid badan way rahiim oo naxariiste يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قد بدأ النبي بلنت كل قال دمر كمركو بلنت لقله موسى عن قاد النبي صلى الله عليه وسلم دمر رجع مركو بلنت لقله عهدك بيعه وعن قادش لكن دمر كان النبي وقع عن قادش وحيكون رسولك إلى دمر رجع وقع عند أدو ديبتاي أنا قال وقع عند لو ديبت markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inni la usafihu an-nisaa dumarka ajnabiga aanu gacanta uma dhiibay nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin afkaad beecada ka galaysaane hal idinka kamida beecadan la galay boqol mid la galay mid hadalka uu dhaha beecadiina waa inta laakiin gacantaya taaban maysaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas weey tayib qodobkan u dambeeyay aayada waxay kaga hadlaysaa oo lagu noqday meeshii ay suuradu ka bilaabatay لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء صلى الله عليه وسلم هل كيف هذا لغو ختمه يا أيها الذين كوا آمنوا الرميو لا تتولوا حق الرميو لا تتولوا هكولي يالننا حكتها كدغاننا هجعلاننا قوما قوم غضب الله وعرض عليهم كركود ما قالوا دنبا ما يهود كريا لغا ودا اديga wax weeyaan inta wala yiri laakiin illa xamimo la yiraahdo gaalo dhan waa sidii ay suuradu uga soo hadashay قد يئسوا ويقوستين قال داس محو هي كولي دغانيساني من الاخره اخره دم بك قوستين اخره way ka qoosteen oo dagaalnimo ku dhimanay Soomaa gaalna aakhiro waxa uma yar kama sida ya isa ay u qoosteen oo kala al kufaru gaaladii min ashaabil quburi gaaladaas oo min ashaabil quburi quburta dadkeedii say u qoosteen oo kale u qoosteen gaalada quburta ku jirtay khayr oo dhan way ka qoosteen Soomaa إلا قبري بوقال قال لي ولا واكودت قبري وحي كدم بيتونه wanaag uma yaal khayrna ma rajayna waa qoostay gaalka qabriga ku jira suu khayr uga qoostay ayay kuwan aad ka wali dhiganayseen dhulka korkiisa joogana ayay iyaguna u qoosteen kuwa khayr oo dhan ilaahay naxariistiisa ka qoostay waxa ku darsanina ilaahay baa u cadhooday fogeeyay sidaas laga wada waxa kale oo iyadana tafsiirka loo dhihi karaa kama yeeysa say u qoosteen oo kale الكفار قالوا دولك كوركيسا جوجتاي من اصحاب القبور كودي قبرغا غلاي ee gaalada hasay uga qoosteen oo kale oo gaal qabri galay oo ka dhintay say uga qoosteen soo noqoshadiisa sidaas oo kala kuwani uga qoosteen ilaahay naxariistiisa iyo dambi dhaafe ha ka wali yeelanina labada waa la maraa لا تتولوا هكولي يلنين قوما غضب الله وعرض عليهم كركودا قد يئسوا قوسوا قوستي من الآخرة آخرة كقوستي كما يئس سيء قوستين وكله
الكفار قالدي أو من أصحاب القبور قبور تدد كذا يعني قالد قبرك قشيبة كقوصة خيرودا وتفسير كهروي كدمنا واجرا هل كاسو حنكسو قبيني سورة الممتحنة هو سورة مبدأ يقضب كيكور يجيسو أي تهي الولاء والبراء ياد شعلان ياد نعي ياد لتشري ياد كتشري يا كودضة يا صاحب كاء ياد أهيلن ياد كهيلن هل كاسي سلك صارت آيات يعني سورة داسي مبدأ يكور يجيسنا كايساقوا آد من القرآن كمسألة يدحوك أساري سان هريب أتلمان سورة الصف وهي سورة دني iyadana waa suura madaniya waxay ka hadli doontaa iyadana oo arintay ku wareegaysa ay tahay dagaalka jihaadka sharciga ah iyo gaalada in la iska celiyo xaq la gaarsiiyo xaq cidii ka hor istaagtana lala dagaalamo halkaas ay ku wareegaysa oo ay tahay qodobka ugu badan ee ka hadlayso bismillaahir rahmaanir rahiim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم حالو بالله مبدأ أساسي إلهي إن خلق قردن أيو تصبيح سنة سبح وحن نزهي وحمانية وحن قلبي بكفوق لله عليه ما في السماوات مخلوقات كالسماوات كل حسوغا وما في الأرض يدلالك لحظة مخلوقات كالسوغاني لما إلهي أيو تصبيح سنان وإن زهيان مدول بلوقديسة يسيدي إلهي وحبرين وهو العزيز ومدك غالبك وأذك ونلقى أتكين ليسكولة تايكري الحكيم حكمة قصي فيصنو غالب نمديسي غالبديسو ميلان مناسبة نمرقو واتاندين شيئا مقعية ربي صفاتك أي حنبار سيهين مركي إسوي مادانا معنى السيادة بكرديان وصو عزيز المرقي عزيز هو مدك كأذك عد والبا adkaanshaha marka aad adagtood cid walba ka adagtahay hadaan xikmad lagu xakameeynin ceeb uu noqon Soomaa meelan mulasaahin baadigi sidaas daradeed xakiimku yaani wax way izada ayay xakameynaysaa izada xikmad baa la socota ee mid iska furan ma aho meel walba isaga dhaxaysa ya ayyuhalladheena aamanu la lima taquluna ma la taf'alun ya ayyuhalladheena kuwa aamanu rumeeyo lima maxayba taquluna u dhahaysaan oo ugu hadlaysaan ما لا تفعلون وحيدا سمينين كبر وحوينادي مقتا على حقه عند الله إلهي أكتس وحكوينادي أن تقولوا إنا تراهدان وتكو هذا شان ما لا تفعلون وحيدا سمينين الله وحكرب أدونك هذا الكيسة هي فعل كيسة إليه سوافقان صدح إنا سوافق جسال ربا قلبك أقا وحكو جرا عربك أقا وحكو الله يحبنها أقا وحي سمينيها saddexdaas haday istawa maraan alla ma jecla ama waa nifaaq ama waa ki i'tiqaadiga ama ki amaliga buu noqonaya ayadani waxay ku soo degtay baa la leeyahay mu'miniinta qaar kamida saxaabadii ayaa waxay yiraahdeen hadaan nabiga weydiisan lahayn ama aan weydiin lahayn amal la sameeyo ka ugu khayr badan wax ilaahay loogu dhawaado maxaa ugu khayr badan وwaxay jeclaadeen qaarkood waa intaan jihaadka la farin waa iyo dagaalka la farin waxay jeclaadeen in loo jideeyo la amro inay dagaalamaan oo shahaado qaataan oo sida janno ku galaan markay soo dageen aayaadka markay jihaadka iyo dagaalka faraya ayaa ragii shalay to qamaamahay waxay bilaabeen waxoogaa inay xaqta dib yara dhigaan oo dalax jeceliyo waxba yara gashay rag qaarkood lax jeceliyo waxba gashay waa la baqi oo caruurtii baa agoomoobay oo adiga laftoodii waa lagu dili oo adduunyaad ka tagi oo waxoogaa baqdin baa meeshii timi markaas waxa leeyahay war shalay weydinkii leeyni kari la'aaye wixii shalay aad lahaydeen ma naloo jideeyo maanta markuu yimid maxaad u qaadan weydeen canaantu marka halkaas ay u dhacay sidaas ay ku timid baa la leeyahay laakiin aayadu waa caamo cid kasta oo ficilkiisa iyo qowlkiisu isdaba maraan oo isdiidaan bay ku saabsantahay waxa soo galaya ballan inaad qaado oo ballantii jabiso Soomaa ballanqaad baad afka ka samaysay ficil ahaan waad u fulin weyday lima taquluna ma la taf'aluna waxaadan ku hadlaynin waxaadan sameeynin ugu hadlaysa waxa kamida dadka inaad farto waxaadan adiguba sameeynin waakii xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamay maalinta qiyaamada nin ayaa wuxuu ku wareegi doonaa xiidmihii calooshiisa
sida dameerku ugu wareego kaleeto dhagax shiidaha markaasay waxay isugu imaanaya dadkii ahlu naarka ah markaasay la warhebelow warsoodigii khayrka nafari jira xumaantana naga reebi jira wax ragee laga galay si wax u dhaxay markaas wuxuu dhaaya khayrka waa idin fari jiray laakiin lama iimaan jirin xumaantana waa idin ka reebi jiray laakiin waa idin damari jiray marka shay hadaad farto atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qiluna wa ya dadka ma wanaag baad faraysaan naftiinana ma halmaamaysan miidaan aqli lahayn wax garanay arrinkaas marka laga hadlay oo waxa la doonayaa waxaad ku hadasho ficilkiisa falkiisana inaad raaxiso aadan istaamarin macna ya ayuha alladina kuwa aamanu rumayu lima mahayba taquluna uleedihiin ma la taf'aluna wahidan falaynin oo sameeyeen kabura waxa weynaaday maqtan caro xageed dhanka carada ilaahay baa u xadhow inda allah ilaahay agtiisa an taqulu ina tirahdaan ma la taf'aluna wahidan sameeyeen tana alla jeceliyahay marka inna allah alla yuhibbu wa jeceliyahay الذين كوا يقاتلون دغالميا في سبيل جدكيسا كو دغالميا صفا حاليهم كوصفا كانهم سيدي ايغو بنيان دسه مرصوص او لسكو ددجيي لا سمي او يعني wax wala isku nabay mu'miniinta ayaa Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu la jeclaaday inay dagaalamaan oo jidkiisa ku dagaalamaan haddana markay dagaalamayaan inay sifan yihiin oo cadawga u saftaan sida dhis la isku dhajiyo kale yaani wax weeyaan dagaaladii waaga la dagaalami jiray ciidanku markuu dagaalamayo saf buu gali jiray laana waxa lagu dagaalamayo yaani ma ahayn sawaariikhdan iyo madaafiicdan hadda meel fog laga soo tuuraya ma ahayn leeb iyo waran iyo waxa lagu dagaalami jiray farday waxa lagu dagaalami jiray ciidanka marka waa la safaya marka waxa loo sameeyaa maymana iyo maysara iyo qalbi iyo yaani xaq yaani saf hore dhexda midigta iyo bidixda iyo kuwa dhabarjibinta ilaaliyo saf gadaasha marka safkaasi rag dadka u safan ee ilaahay dartii u dagaalamaya kaasoo ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacaala oo hadalkoodii ka dhabeeyay inna allaha la yuhibbu wa jecel yahay alladina kuwa yuqaatiluna dagaalamaya fi sabiilihi jidkiisa ku dagaalamaya safan ayagoo safsafan aba safan kaannahum sidii iyagoo say u sifayihiin ilaahay salaadana in sida loo safto jecel yahay dagaalkan insaan loo soo saaray salaadana sidaas oo kale inaan la kala dambaynin oo la simaado kaannahum iyagoo bunyaanun dhisah mursuusun oo la isku nabay la isku dhadhajiyay oo la isgelgeliyo oo dhexdooda uusan dulduleel u dhaxayn sidaas way macna talaasuqa isku dhagawaay marka la safay وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين آيادني وحيا لغا ورميا النبي موسى يتدكيسي سي ولا دغمين نبي كان لوغو سبرسين يايو hadii lagu dhibay de anbiyada saasa loo dhibi jiray dul qaada la leeyahay aayada ka dambaysana nabi ciise ku saabsantahay oo iyadana sidoo kale وإذ وقت كشك النبي محمد قال أويري موسى أويري نبي موسى عليه السلام لقومه ضدكي سي تلكي أوكيري يا قومي تلك ضدكي يجيو لما محيبات تؤذونني إيدي بيسان وقد تعلمون إذنكو أني أنه رسول الله رسول كيسي متكو الله صدر إنا هاي إليكم إذنك إذن صدر إذنكو إنو الله إيسو كيندري هذا محا إيدي بيسان فلما قرتي زاغوا أي اللحدين أزاق الله ألا ولحي قلوبهم قلوب توديب اللحي مركي حقي كل حدان لكرواي قلبي قوديب على الدوي والله ألنا لا يهدي مهنونية القوم قومك الفاسقين إطاعدي سكبحي إجدكيس نبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والله دبي ريبني إسرائيل نوي دبين آدبوا دبين ريبني إسرائيل كاني ويهودا هذا كجوكتين nimankaasi niman dhib badan waa quraanku markuu ka sheekayna ilaahay markii dhibkooda oo la yaab ilaahay kama baxsanin allihii abuurtay kama baxsanin malaa'iktii kama baxsanin rusushii kama baxsanin nimanun kadeed oo saa u soo liqdaaran waa marka anbiyaday aadka u dhibeen buu kamid ahaa nabi Muuse alayhi wa ala nabiyina sallallahu wasallam Allah waa ka inoo sheegay suuratul ahzab ya ayyuhalladhina aamanu la takunu kalladhina ya
آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا مؤمنين تيوها النقونين هو النبي موسى دبي وكله النقونين نبي جينا هو دبينا سيد النبي موسى الله دبي وكله إلى هي الوحي قارين أي هذان موسى شالوا ليه شالوا هذا متقن يعني ورجع حنية أنت الحان كقول حنيها وين هذا مركهير كاسي قارين إلى إلهي عيبتا إيو دعايدا أي دعايدية مركو دمعي إنه يعني كظاهرين أيام مال المالمها كم يصير حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبي موسى قبي سنة مرضي سينتو سيبي بمركز رجع صارت كدبنا قبيس بوكالي بني إسرائيل كوحان ونيون كشيلة ده كل شيء نال كاسي جوجا مركو قبيس كي قالي رجع حبا ومريه العرّيب نبي موسى أسوأ أقاول أي مركز رجع يقول الله دب أرض ها ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ورجع يوم مرض إذا ورجع يوم مرض إذا بني إسرائيل وين أركان مركز إنه سنشيل الله هين وعادية مركز وأركان حديث كان النبي الصحيح يقصه كنته مركز إلى هير كاسي قارن إلى هير كاسي قارن مركز النبي موسى بني إسرائيل وحقولوا بني إسرائيل محاد يدي بيسان قوم كيدينكو أوك إنه عن أهل الرسول الله يصدره إذنك يسوع كيندره أون مصلحة دينية دنتي نوضو محاد يدي بيسان مركي حقي أي كل حدنا إلهي بقلوب تودي اللي حيي يعني جزاء وفاقا واحد أدونك مركو اللي حضو ويسجل لك كريوه قلبي جسال اللي حين يمشوا هذه بمركو وش الله يقول فنيه وكو كابا لنا مركو واحد كيش الله ونقلب أفئدتهم ما ونقلب أفئدتهم بما لم يؤمنوا واتياه يعني وحوي مرحدي إيمانك اللي جواي قلبي جوده ولا جدنا مركو ولا جدنا مركو هره إلهي أدومدي سمط ظلميه حق واللجو كاني رسولك واللجو صدري كتابك واللجو صدري واللجو وانين واللجو صصبي واللجو شكامين واللجو كري وإزوما مركز وحوي قلبك على والله دفنا يا مركز الشيطان يبلايا لجو صليد واللجو لحينه فلما زاغوا مركز اللحدين ويحقق اللحدين أزاغ الله الله ولحي قلوبهم قلوب تودا وطن مؤمنين إلهي بريانو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إله قلوب ترى اللحينه وحقق اللحين وإذ وقت كشكه قال ويلي عيسى ابن مريم ويل كذا إلى أن أبو موسى الله هينه هو يدي بالله أبتريا يا بني إسرائيل بني إسرائيل إني أنا رسول الله رسولك إلهي بانه إليكم إذن كلا يدين صوتري رسول الله كي الله صوتري بانه إليكم إذن كلا يدين صوتري مصدقا حال أنا مد رومينيا لما بين يدي وحي أنا جهري ومن التوراة التوراة كتابك يقول التوراة إنه حق يهبان رومينيا هو الحجني ومبشرا حال أنا مد بشارينيا بالرسول الرسول كو بشارينيا رسول كاسو يأتي إيمانيا من بعدي كذا شيدا رسول كاسو اسمه مجعيسون أحمدي توراة يا كتابك يقول نوار رومي رسول يقدم بيو كذا شيدا إيمان دونه مجعيس أحمد ليلة هذا وانكو بشارينيا فلما جاءهم مركو أليم رسول كي لقوا بشارينيا أحمده فلما جاءهم مركو أليم بالبينات آيات كي حجوين كي على عدا قالوا وحيد هذا كلي سحر ومبين وسحر ويسعده نبي موسى عليه نبي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنبياء دي بني إسرائيل نبي وقدم بيوها نبي جينا نبي حجينا وها نبي أمر حينين بني إسرائيل سلسلة الرسول شهود صوت حنين النبي إبراهيم كسر باللابتينا عنو جرى يعقوب كسر بالله إسرائيل هو حرورتي النبي يعقوب واي حرورتي سيبك باللابنية هل كاس سلسلة دير أو استوت شوكتو أنبياء يرسل بني إسرائيل هاي نبي عيسى والنبي نبي عيسى بني إسرائيل وحو أشياء التوراتنا إنه الرميسية أو الرمينين نبي محمد وكب شارعي أو كدم بين دونه إيمان دونه أحمد كوا نبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح وقصوا نبي صلى الله عليه وسلم إن لي يعني أسماء مقعيان له النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد
والعاقب والحاشر سمجد يعني مقعيو لها النبي صلى الله عليه وسلم مقعيدي سمرك وحاكمده أحمد محمد عاقب حاشر مقعيدا صار مقعيدي سو مركا بشارة داسي والنبي عيسى بشارة وكتجي النبي محمد إيمان دونه كتبتي وكتجي هي التوراة كوي كوري التوراة نواكو قرن إنجيل نواكو قرنت لكن وي تحريفيان وحبي كير بدلين ولسه وحكوية على كتاب التوراة عهد الهيستاني إنجيشا أنا جيشا وحكوية على نصوص ولي التلمامية نبي محمد يمشوا كسو بحدهم أولي سيدي بيقول الله سيكستو يوبد بدلين ولي وحبكوية مركب بشارة أنا وكتجي نبي نوح لويدي صلى الله عليه وسلم أرن كاجا باللوجي سمحوها وحويري دعادي آباه إبراهيم سورة البقرة وكود دعاء صوما وابعث ربنا وابعث فيهم رسولا صوما إيو بشارة دي النبي عيسى إيو هو يدي أو مركا أور كيدا أن لها أركتي أو كوريوتي إفتين انتو حبين كيدا ترنك كبحي شام إيو قريها إيو قصوشة كتا على إفتيميي inta saarintayda bilowgeeda ahayd oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam marka bishaaradaasi waa sidaas weey markuu yimid nabigi bishaaradiisa looga tagay falamma jaa'ahum wa nabi muhammad wa mubashiru bihi wa kii lagu bishaareeyay markuu yimid oo aayaadkii cadcad xujooyinkii la yimid waxay yiraahdeen waa sixir cad way diideen marka kuwa loola iimaanay waa quraysh iyo ahlul kitaabkii iyo gaaladii dambe nabigu yimid sallallahu alayhi wa sallam waman adlamu yakadul bibadan ممن عد افترى بين بأبورتي على الله ألا كركيس الكذب بين تكو أبورتي أو بين شيء إلهي كو بين شيء والحال هو إسقى يدعى لوجو يريو إلى الإسلام إسلام من لوجو يري سو إسلام بلريه إسلام بيه حق بلوجو يري أسقون إلهي بكو بين أبورني يا كظلم بدنوان والله ألا لا يهدي مهنوري القوم قومك الظالمين الظالمين تعه يريدون وحيدون يعني ليطفئوا إني بختيان والدميان نور الله إله النور كيسا بأفواههم أففيال كودا إني كدميان بيدونيان والله أو الحال الله ألنا متم نوره نور كيسا مدى ما يسترى يأوية ولو كريها بكا هذين الكافرون قالوا بكا هذين هو إساقو الذي متكوي هو الذي متكوي أرسل الدري رسوله الرسول كيسا محمد بالهدى هنونك الله دري هنونك الله دري إيه ودين الحق حق الدينتيس حق الدينتيس دينتي حق هيدنا الله دري محل الله دري لو ديبي ليظهره دين كاسينو ككوريالو على الدين ديمها كله دمانتي ديمها كله دن إنه كسر مريه ولو كريه هبك هذين المشركون قالوا يعني كون مشركين تهبك هذين كون إلهي لوgu yeeray islaamnimada loogu yeeray ilaahay kaliya inay xaabidan loogu yeeray ee haddana ilaahay ku been abuuranay ee shirkiga u sameeynay ee kuwa wax la wadaaga u sameeynay been abuuradka noocaas wada haddana loogu yeeray war waxa ka imaado kaalaya ilaahay kaliya u hogaansamo diintiisa qaata yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna waa in dantaadiyo maslaxadaada lagugu yeeray wixii xaq lagugu lahaa haddana lagu kari laayood meel kale ku socoto daalim baati cid ka dulmi badal ma jirto macna daalimiintana Allah tabaaraka wa taala yaani waxa way ma hanuuniyo sababtan lagu hanuuninaynin asalkaaga daalima daalim hada tahayna waa inaad dulmiga ku dhimato kadibna lagu cadaabo waa ma istaahishid in lagu hanuuniyo laana hidaayadu waa shay qiimo badan shayga qiimo badan qalbi qiimo badan iyo meel wanaagsan in la dhiga mooyo meel wasakhaysan la dhigi maayo hadaad marka wasakhaysan tahay oo daalim tahay ma istaahishid in lagu siiyo hidaayada marka ilaahay ma hanuuniyo dadkaas yuriiduna liyutfi'u wahwi gaaladu siday xaq uga hortagayaan yaa midaal laga bixiyay waxa laga dhigay oo kale iftiin weyn oo ilaahay wato oo alla leeyahay ayuu gaalku doonayaa intuu afuufo inuu afkiisa afuuf kaliya ku damiyo waxay la mid tahay oo kale nin qorraxda soo baxday yiri dhalaalkeedii iftiinkeedan daminaya oo afuufay fuuf intuu yiri afuufay dami isle miye usurobi adiga umbu afku ku daali Soomaa
adeer waysan hawadu ka dhamaan iyo neeftu ay isdaalinin qorrax soo baxday ma dabin kartid nuur ilaahay wato iyo xaq uu wato oo ilaahay wato soo dirsaday oo garab taagan yahay gaalka hor taagan ee ana ka hor tagayo oo baabi'inahay wuxuu la mid yahay iftiinka qorraxda nin afuufis ku daminayo kale ama ku bakhtiinayo kale marka uma suuroobi karto way allana wuxuu ballan qaaday wallahu mutimmu nuurihi wa dhamaystiri nuurkiisa ballanta ilaahay baa suuratu muxuu suuratu tawbana maxay ويأبى الله إلا أن يتم نوره ألا نواديدي هاي إنه يفتين كيس لما يسترم مويه قال له الرواي إنه يفتين كدمي ألا نواكد ديدي كيس صحوني زمر كيف تيس صحوني ده الله صحوني وحتكون قرنا يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي قال له كل كهر تكتي كل يجيبوها صوما كل يجيبوها هذا السوار بهذا يسود ديان إن الدلام بيسكت ديان إن الشرقولان بيسكت ديان إن الدعايدين بيسكت ديان حقي بيسكت ديان إن الدعايدين والسحر والساحر وفلفلو ومعوها وعاصي وكان وحول بهذا يسكت ديان حقي وهل كان ليمن يقولوا كل كهر تجان واسعون إذا تودي تيلاي بصعدي صوما حق واسدامر حقا إلهي سود شيء قال وهبك هذا هلا دجالمو سوار بهاي يسكت ديان تيلاي بصعونيس مؤمنين ترى إلهي وأكو امتحان يا مويه سجى وطا أيها امتحان بالله كأنه لو قد يبيو وركفق كشقيستو كفا إيديستو أو كدن قارو تشنكو كسبض إلهي الرديسة لكن إلهي تبارك وتعالى وحوة إنما هو رستاي كريم حقي كصوب بالله وضي نبي محمد كنيجي كصوب بالله وضي صلى الله عليه وسلم ما أنت ما يقوم مريه لما بليان كبضن برا عشان ما أنت سوما هل نبغى كصوب بالله وضي نبي محمد كنيجي كصوب بالله وضي ولقينا تاريخ دير ما لنا لا دغالم يدين ما جيرو ولما عدوغيسو سنبدنay ما انتظر وعالمك قلبيد iyo bari iyo meel walba la dagaalsay oo waxay dhaqaale lahaayeen iyo waxay ciidan lahaayeen iyo waxay xadaarad lahaayeen isugu geeyeen hadana maca dalika waxba ka qaban laayeen daayad argagixiso waa asal raac waa kan naxariis male nabiga ay kan samee هذا مع ذلك وحكسي قاضي يا إسلام كفافي تام بكسي قاضي وحجائبه واحد دولة وقرب تاجر ملك يا واحد دولة وقرب تاجر ملك وموجودة إسكاس عطوان سمارت ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يجوا كهنا نعب وصحونيا سوح معجزة ما ديما ودي رقم ودينا intay dhaqaale kasta ku bixiyeen oo ciidamo ku garab istaageen oo wax walba isku dayeen bay dhaqaajin laayeen Soomaaliyeed marka waxa weeye ilaahay baa wato wehel uma baahna waay Allah wato wehel uma baahna waa aayad cad oo inuu hortaalo way macna طيب يريدون وحيدون أن يطفئوا إلى بختيان أم الدميان نور الله إلهي نور كيسا بأفواههم أففيال كذا إلى كدميان والله ألنا أما والحال الله ألنا متم نوره نور كيسا مد ما يستري هي ولو كره بك هذين الكافرون قالوا كهشضوا معنا مال قاعد ما يسوي معنا هو الذي متكوي أرسل در الرسول والرسول كيس بالهدى هنوك الله در خلقك إلا هنوريه حق اللغة هنوريه حمان تنا لك صار والدين الحق يدين حقه أو وضع علمي يرقم وضع صوت وعلمي عمل وضع صوت معنا محل الله ودري رسولك محل الله ودي بدين تن ليظهره إنه كسر مريض دراده على الدين دينك كله دمانتي آدمه وحو هيستورن دين بالدها baadil iyo xaq waxay noqoto marka diimahan baadilka la haysto inuu islaamnimada ka sar mariyo ma aha diinta islaamku inay diimaha kale ay ka hooseyso mana aha inay diimaha kale la simanto oo la yiraahdo islaam iyo kristan islaam iyo yahuud islaam iyo hinduus laba sinbi karto maxaa la rabaa inay ka sareyso liyudhirahu ala ad-din kullihi wa inay ka sar marto حجة أهان هي الدليل أهان وأوجا سريسا سيف هي السنان نقورت أود شوينا أوجا سرمرت ساز درادة ملا أوجلا حق وين الدين ترموت بعد اللي حق بالسنان هي اللي يسكون كرب وضيا مايا تايا ذا مايا ليضيروا على الدين كله ولو كره هبك هذين المشركون مشركون تي آية دا أنت في سورة مركي لجين وحلوك بجبينيا أرنكي أها جهادك هي دجالك مؤمنين تو أي حق كفافينيا
يا أيها الذين كوا آمنوا رميوا هل أدلكم ما إذن تصاع على تجارة كنعس كركي بعشرة أو تنجيكم إذن كبد بادسو إذن ككرس من عذاب حقي أليم أو حنوشيا كنعسي أيضا كو خسارين أو مبارين أو آد قول كقادا أو إذن بدبادية ما إذن تصاع يا كنعسي أن مرة لغو خسارين صوهاما نتصو ما هاي ديار نقض مرة انت waxaa hordhig looga dhigay in la soo jeediyo waa ka ganacsiga marka طيب تؤمنون وترمينيسان بالله الله iyo rasuulkiisa waa ganacsi aakhiro وتجاهدون ودغالميسان في سبيل الله jidka ilaahay baad ku jihaadaysaan بأموالكم xoolihiina aad ku jihaadaysaan وأنفسكم iyo nafafiyalkiina soo martaan ganacsi aan khasaaro lahayn oo idin badbaadinay وعذاب آخر إذا كبد بادية وكاسو يمر إيمان جهاد حولها هي نفط هذا ما إلى جدك إلهي يكون بحسه هي دين النصرين تاد طيب أنت أمرك الليل أيها واحد إيمان يسمرك أو محا كتشرو أو قرن التجارة دازي محا كتشرو أو كهلينا حتى نسي السجد شوقنا كفر يصلوا محا دي بكتشرة وحالي لذلكم كينا أو إيمانك يجهادك أيا خير بدن لكم إذن خير بدن إن كنتم هداتهم تعلمون كوا حقرني وحوك خير بديه إلى الجهاد كفر الستان وهدات جهاد كنفتني وحوليني إلى الدين توقوي اللسان كفر الستان محا إيمانية مركز واد اللوب يسان واي عدو قلنا الله يدكو صليدي صلقان ميسان واد قيب سميسان والذين كميسان واد اللوب يسان خير كان برك عزقيني شرفكين وحو كجرا إن فريضة أيضا استاجسان معنا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هل كاس مرك اللي جيمد أيا ولي وحي هنقولي كقبان بل أرك إلا سيحدي خير كاسي بل لوسي شرح واحد يغفر وضافي الله لكم إذنك ذنوبكم ذنبيدين إذن ضافيا ويدخلكم إذن قلنا جنات جنوين وإذن قلنا جنوين كاسو تجري أي قلقولة يسوي صحة من تحتها هوستيدا الأنهار وبياشك الدونين وحيدها ومساكننا ويدسين يا ديغامو ويدخلكم بيكوحرنت ويكون جنات ويدخلكم وإذن قلنا جنات ومساكننا وإذن قلنا يا ديغامو يقريو طيبة أو وناكسن أو قيمة بدن قار ذهب بيكدسيهن قارنا فضة كدسيهن قريها جنة قارنا لول بيكدسيهن طيبة أو وناكسن كواس في جنات عدن نجاديك جنوين كودا لحظة هذا بيرها أي سندوين كقريها كل حيالان وأسندوين يا بيرو نجادي أو الجوارو أن لجنا جورين لجنا ديمانين وقريه قرحسن هذا السندوين بيكون يالان بيرو وينه هذا هوستو دو بياشي وقلقلها يو سعود به بسعودة هل كاس هذه المركب ذلك كائسجا الفوز لبانتي العظيم وينيت وتا لبانت وين هذا دربتين مركب جناعسي وكا وحائماني سمركا انت الله شيء وآخر أبال كذا الدنيا محلنا وسؤالي ما نسمع بني آدم كي آخر وحكوت شيران كريه كم كان حياة وين وحجان الله صهر مريو ولي بتهدك دجاب وسيج عليه مركو وين اللي يهدو تنوات يدين وات مرك هدي سويديين تاوا آخر لقى صور رمي الدنيا محل هلينا وأخرى ولكم محايدين سجناد أخرى متكلة أو تحبونها أتعشين يعني تنكلة أيام الآدو تعشين ما حيتاي نصر قول يهيلو أو من الله حق الله كهات أو عدوين الله يدين كهيليو تكريسان إيه وفتح فرشو قريب أو دو أو تقال ديجامد إذا كفرتان فرشو مكان كامل طيب وبشر بشارة النبي محمد والمؤمنين المؤمنين بشارة تنا وحلا يلسي قوري أدوسي تعيشينه وإن قال هذا كاتان ولا يدين كعنسيو أو تكريسان ديجامد دي يقول كودنا فرتان تنا تعيشين بالله محله يدي تنا تعيشين نانا بني آدم كل سبب الله وشيء متكود دقدقو تعليه وحي أصهر مرو تعليه هذا تقول هذا وربقولكم أنا هذا ما أنت كسينه
أما سنة كدبان 1 مليون كسيري وحكوا لي ورسلت كأنها قاري الله بقول كي يسيبوا كله صوما خلق الإنسان من عجل واحد سيدي سوى حوشي سوى دقدق وحي يسوى هرين هاي تاسو ضنيني سيداس دراديد با waxaan iri guusha adduunyada iyo inaad dulalka furataan taasoo sii jeceshihiina iyadana waad leedihiin way macna halka maxaa ka soo baxay marka adduunna waad liibaanaysaan aakhirana waad liibaanaysaan maxay ku xidhan tahay iimaan iyo jihaadkay ku xidhan tahay halkaas la mari wa ukhrana waad leedihiin mid kale oo tuhibuunaha aad jeceshihiin nasru weeye hiilo oo min Allah xagga alla ka hato leedin hiiliyo wa fathun iyo furasho qariibun oo dhow oo aad bilaada furataan makka iyo kuwi kaleba wa bishir u bishaare nabi maxamed al mu'miniina mu'minta ugu bishaareeyo wanaaga aakhira iyo kii adduunyada labadaaba ugu bishaare yaa ayyuhalladina aamanu kunu ansar Allah hadii jihaadkii laga soo waramay halkan marka mu'miniintii waa loo jeesaday inaga ayaa la inoo soo jeesaday oo amar layna siinaya yaa ayyuhalladina kuwa aamanu rumeeyayo kunu ahada أنصار الله هيليا ياشا على النقطة الله هيليا سن إلهي هيلنا دين تو هيلي نيك الدين إلهي هيلي بقى الله هيلي برك الدين تو هيلي ونفط هذا يحول هذا يوقت هذا يحرك هذا يقلن هذا يأود هذا يدولة هذا الدين تو هيلي كونوا أنصار الله لما كلا قادين مسؤولية دا إن دين الله هيليا مؤمنين تو رب وتعالى ساس دراديد با waxaa laga cabiro khidaabka lagu wajahay yaa ayyuhalladina aamanu ragiyo laba dhig dumarkiyo laba dhig madaxdiyo laba dhig shacabkiyo laba dhig maxaa leeyahay yaa ayyuhalladina aamanu wa mas'uuliyadina wada taala way diinta in loo heliyo kuunu ansaar Allah مثال با marka la inisiiyay oo qolo inaga horeysay ugu heeliyeen oo kale ugu heeliya kama sida qaala ugu yiri عيسى ابن مريم ويلكيدا للحواريين أصحابتي سيسوء ويل حواريين توحل إلى هذا وأرضدي النبي عيسى نبي كان أرددي سيسوء أصحاب لما يلاه أما الصحابة لما يلاه نبي عيسى أرددي سيبا حواريين لإلى هذا تذكر رمية مركز راعي بها الله سعودي بها حواريين تسدوا ويل من أنصاري يا إيهيل إلى الله حق الله يا إيهيلني مركو هذا الكالية النبي عيسى ومركو كدر يا بني إسرائيل قال نمو يحقيني كجسدين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري وريا إذن كسو بحوه يقرب استاغو الدين تأيغو هيليا حواريين تبا مركز سالقوين قال وحيدين الحواريون حواريين تي أصحابتي نبي عيسى وحيدين نحن أنه أنصار الله هيليا ياشي إلهي بانو نهي أنك إلهي دينتي سقرب تاغن وحقه قرب تاغن نبي عيسى فآمرت مركا وحا الرميسي طائفة كوح ومن بني إسرائيل بني إسرائيل كمذا أي نبي عيسى الرميسي وكفرت وي كفر دي طائفة كوحنا وي كفر دي نبي عيسى مركا الله صوصاري وحقي دحدق وصاء وقود واقعي لما يوكلا بحين قولوا وي الرميسي وتوحيد كي بيقاتل قولوا وي كفر دي كو كفر يبا النوعية مركا نوع ونوع يهود بي أهايانو بني إسرائيل بي كمي أهايانو نبي النبي سيبي بالدينين با بل وحيد أهدين واقرع هو يدين الزانيات بي أهيد يا إلهي ركاسي قالوا يهود ديل كيسين ويسكو ديانو إلهي كتخلصان بيسكو ديان ومركا إلهي قاضي ينبي عيسى وحلقبت بادين يا يهود وديل الربطة qoladaasi waxa uu ka fara daa'ifatun koox bay ahaydo halkaas ay mareen waa ka quraanku aad uga hadlay hooyadiina macnaha difaacay isagana difaacay qolada labaad ee beenisay waxay ahayd kuwa intay nabi ciise rumeeyeen xadkii uu lahaa adoonnimada dhaafiyay oo qolo waxay yiraahdeen ciise ma baaha aadame ee waa allah qolana waxay yiraahdeen ma ahee وويل إلهي ضلوي بيده قولنا واحد ده ورميها وقلدنتهين الله أو صدح قيبوت ككوبا قيب كم يدوي الابن والأب بعيد هذين يعني وحو والروح القدس صدح ذا سؤال الله إسكساري هاي بيده صدح دي ميت كم يدوي وعيسى صدح ذا فكرة بقرآن كاشيء لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وكوي المسيح عيسى يا الله
mar kalena waa ka quraanku diiday oo yiri wiil ilaahay markay ku sheegeen waa ka diiday mar saddexaadna waa quraanku yiri thalithu thalatha waa ka ku sheegay saddexda madhaboodna waa u kala bixin kristankii ka jidka ka leeyahay qolo saddexaad baa jir afraad baa jirtay oo nabi ciise raacsanaydo ayagu rumaysnaa inuu adoon ilaahay yahay oo alla soo dirsaday sida quraanka ku taal qolada marka rumaysnayd inuu adoon ilaahay oo wiil ilaahayna ahayn allana ahayn qayb ilaahay kamid oo uusan ahayn qoladaas oo qolo yar ahayd baa la isugu tago la baabiyay marka kutubtoodii oo luntay oo asfaartii injiisha qaar kamid ah yaa waayad dambe meelaha qaar kood lagu arkayo nabiyullaahi wuxuu ahaay sheekul islaam ibn taymiya wax ka soo guuriya qaarna wali waxba meelaha qarsoodiga laga helaa baa la dhahaa qoladii marka muuminiintii xaq ahayd waa la isugu tago waa la baabiyay kristanka hadda aad arkaysaan ee wuxuu ahaay kathoolika iyo orthodoxiska iyo protestanka kulli waxanay ka soo jeedaan marka waa markan dambe diintii ka leexdeen oo ay qaateen xadgudubka ay galeen oo ay kala bixeen iyaga dhaxdooda iyo islaanadeen oo isgaalaysiiyeen marka wa kafara daa'ifatun kooxda gaalowday way فأيدنا أبو الله يدوان حوجنا الذين كوي آمنوا رمي على عدوهم عدو جود كركودا كحوج كركيسان كحوجنا يعني إلهي ما قرب استاجوا أود مكسي عدو جودي فأصبحوا مركزا وحي هذين ظاهرين كوسر ريو عدو جودا كسر ريا وقوة ولو حيليه ونبي عيسى قولدي حق أهان الرميسو أدون نمض الرميسو رعدي ومركي ليسوا يمد حجة يدليل كي كجعت كادين كوي كله كذب اللي يسقط تقول الله قلنا وحيليهن فأيدنا الذين آمنوا ومؤمنين النبي محمد راعي حلقة هراء وحكوك وكفر الطائفة باكوك قصة النبي عيسى إيو حواريين جي إن تنضم بها فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ومؤمنين النبي محمد راعي والنبي محمد مركو صباحي ayaa wuxuu nooleeyay dariiqadii nabi ciise ee saxda ahayd iyo tawxiidku ka tagay ayuu nooleeyay markaasuu xoog iyo guul lagu siiyay oo gaaladii kaga adkaaday halkaas la marinay faayadna waan xoojinay alladina kuwi aamanu rumay ala aduwim adugooda korkiisan ka xoojinay faasbaxu markaas waxay ahaadeen daahiriina kuwa adugooda ka sareeya hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi